wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Cumar Shucayb Maxamed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga agaasima waaxidyada shaqaalaha wasaaradda ganacsiga marti sharafta iyo bahda saxaafadaba salaadiintii cuqaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi maanta farxad weyn bay ii tahay inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ii gartay inaan noqdo wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga xafladan aynu maanta joogno iyo madashan oo daaran soo dhaweynta wasiirada wasaaradda ku soo biiray iyo wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda ganacsiga inuu sagootiyayno sida soo qaban qaabiseen iyo sida fiican uga soo qayb gasheen intaba waan idinka mahad celinayaa mar labaadkii waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo anigoo mahadaas ku bogaadinaya sida wanaagsan ee la xajcelada leh oo dhalinyarada reer Soomaaliland masiirkii siyaasadda qaranka oo uga meel mariyay isla markaana uu xaqiijiyay himiladii siyaasadda ee dhalinyarada reer Soomaaliland maaha markii uu horeysay madaxweynuhu ii magacaabo wasiir wasaarad ka howlgala ama wasiir ku-xigeen hadda ka hor 8 bilood ka hor waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga kuma xusbi shaqada iyo xilalka qaranka muddo ka horeysana 3 sano xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ka tirsan baan ahaa intaba waxa fududeeyay oo arinta dadaalkeeda iyo ogolaanshaheeda baan ka helay madaxweynaha qaranka isaga daayirtana dabarka ka furo golayaasha deegaanka oo ogolaaday anigu ku hadlay afka dhalinyarada reer Soomaaliland aad iyo aad baan madaxweynaha ugu bogaadinaynaa sida hufan ee fiican oo hankii dhalinyarada siyaasadda ugu hiiliyay uguna hormariyay haddaan soo noqdo munaasabadan maanta wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga sida halkan laga sheegay waa wasaarad aad iyo aad u ballaaran waa wasaarad qaranka ahmiyad weyn u leh annaguna anigii saaxiibkii wasiir ku-xigeenkuba waxaan rajaynaynaa inaan wixii tamar iyo tayaanu hayno aanu ku soo biirin doono mar labaad farxad bay noo tahay wasaarad dhisan oo dhammaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirta isla markaana wadamada jaarka iyo dunida caalamkana xiriir la leh inaan maanta wasiir dowlad ka noqdo sida fiican ay shaqada qaranka u hayso iyo shaqaalaha baaxadda leh halkan laga tilmaamayna waxay ka turjumayaan wasaaraddan shaqada ay qaranka u hayso runtiina wasaaradda ganacsiga iyo maalgashigu waa wasaaradaha halbowlaha oo qarankeena Soomaaliland waxayna muraayadu tahay qiimaha aqoonsiga aynu had iyo jeer raadinayno markastoo ganacsi iyo maalgashi cusub la soo jilaabo markastoo ganacsigeena iyo siyaasadda ganacsigeena ay qaranka wakiilka uga tahay la meel mariyo waxa soo dhawaanaya in wadamada caalamku ayna bartaan waxa soo dhawaanaya inaynu saaxiibtinimo la yeelano dalalka aynu jaarkan ay dalalka caalamkeena aqoonsiga ka raadinayno annagoo ka duulayna siyaasadda madaxweynaha ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waxaan u ballan qaadaynaa inaanu shaqada iyo xilka qaran ee madaxweynuhu noo igmaday sida waajibaadka dastuurka qarankeena nafarayo inaanu gudan doono maanta madashan oo duco iyo dardaarana ducadiina waanu qaadanaynaa allaha noo aqbalo dardaarankiinana waanu qaadanaynaa intaad halkan ka tiraahdeen waanu gutuminaynaa insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ku shaqayn doono aad iyo aad baan u hambalinayaa shaqaalaha wasaaradda waxaanu leenahay waynu isu joogi doonaa waynu iswaraysan doonaa team isku xiran oo ilaa shaqaalaha inaga oo wasiirkeena wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Cumar Shucayb oo runtii ah wasiir aqoon-yahana muddadii hore idin joogayna aadin mahad ballaaran halkan uga jeediseen annaguna waanu ku bogaadinaynaa inaga oo garba aynu ku duulayno wasiirku inoo yahay inaynu shaqada qaranka aynu hayno aynu ka soo wada baxno wasaaradda ganacsigana aynu sumadda ay qarankan u leedahay aynu muujino oo aynu waajibaadka ayna saaran si hufan u gudano ayaan dhammaantiin idin rajaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu